golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ayaa kalfadhi aan caadi ahayn oo ay maanta ku yeesheen xarunta dawladda hoose ee magaalada Hargeysa ayaa waxa ay ku ansixiyeen xeerar ay wax ka bedel iyo kaabis ku sameeyeen iyo waliba siyaasadda guud ee ay ku waajahayso dawladda hoose shirkadaha qashinka kalfadhigan aan caadiga ahayn oo uu shir gudoominayay gudoomiyaha golaha deegaanka ee caasimadda Hargeysa ahna duqa caasimadda Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko ayaa dood dheer kadib oo ay ka yeesheen mudanayaashu xeerarkaasi iyo waliba siyaasadda dawladda hoose ee qashinka ku aadan ayaa waxa ay cod gacantaaga ku ansixiyeen xeerarkan oo ka koobna 2 xeer waxaana ansixintaasi kadib xaqiijiyay in la ansixiyay xeerarkaasi maayirka caasimadda Hargeysa ahna gudoomiyaha golaha deegaanka ee Hargeysa Cabdiraxmaan Maxamuud Caydiid Soltelko waxaanu yiri waxa weey saasay noogu ansixeen 2 xeer iyo siyaasadii qashinka si aanu sameeyno muxuu ahaa si aanu xeer hoosaadkeenii iyo miisaaniyadii iyo taariifadii wax saxnaba kalfadhigeeni wuxuu noqon doonaa maanta Isniinta soo socota hadii Ilaahay ka dhigo iyadoo qoraalana waa la soo sameyn doonaa saacada la sheegay shirka kalfadhigii aan caadiga ahayn aynu ku ansixinaynay siyaasadaha iyo xeerarka iyo wax ka bedelkii shirkaduhuna saas inoogu xidhan